Assalaamu calaykum kusoo dhawaada channelka muuqaalkeena maanta waxaan ku qaadanaynaa sidee ku heli kartaa passwordka aad hilmaamtay ee Gmail-kaaga adigoo u maraya qaab fudud oo aad ku heli kartid passwordkaaga. Daawasho wanaagsan. magacaygu waa Maxamed Maxamuud, channelkani waa Caaqil Taj. Kanaalkani waxaan ku soo gudbinaa muuqaalo ku saabsan teknoolajiyada sida isticmaalida apps-ka iyo sawir editing-ka. Fadlan haddaad nagu cusub tahay nagu soo biir oo channelka subscribe saar, ganbaleelkana furo si aysan ku dhaafin muuqaaladeena xiga. Mahadsanid. Waxaa marar badan inagu dhaca in aan mobilkeena aan ku samaysano Gmail account cusub, muddo kadibna waxaan iloobnaa ama aan hilmaamnaa Gmail-kaasi passwordkiisa. Waxaan muuqaalkani kugu tusayaa qaabka passwordkaaga aad ku soo ceshan kartid adigoo lagugu xujeynin koodhka 6 number oo verification-ka ah. Marka waxaad soo furataa Gmail app-kaaga, kadib waxaad taabataa logada, waxaad si doorataa manage your Google account. waxaad tagtaa marka personal info, kadib waxaad si taabataa password. kadib markuu halkaani ku keeno waxaad taabataa marka forget password. kadib wuxuu ku keenayaa marka halkaani wuxuu ku leeyahay passwordkii ugu dambeeyay aad xasuusatid oo aad ku isticmaashay Gmail account-kan ama Google account-kan geli. marka waxaad iska gelisaa passwordadaada aad isticmaashid mid ka mid ah. intaasi kadib wuxuu ku keenayaa marka halkaani Google-ka marka wuxuu rabaa in uu xaqiiqsado qofka Gmail-kani passwordkiisa forget dhahay in uu yahay qofka saxda iska lahay ama in uu yahay qof kale oo tuugeysi camal u socdo. marka si aad u xaqiijisid taasi in aad tahay qofka saxda ah, waxaad samayn kartaa marka labadan way midkooda in aad taabatid try another way ama continue. haddii aad taabatid try another way wuxuu kugu soo dirayaa Gmail-kaaga bashqad, wuxuu kugu sheegayaa marka bashqadaasi device-ka laga soo galayo account-kaaga information-kiisa. haddii aad rabtid inuu soo galo waxaad taabanaysaa yes, haddii aad rabinna no ayaa taabanaysaa. teeda kale waxaa jirto way kale inaad continue aad tiraadid. haddii aad continue tiraadid wuxuu ku weydiinayaa marka log screen-ka kugu xiran. logaasi haddii aad furtid wuu ku qaadanayaa marka wuxuu ku leeyahay steps kale ayuu ku geenayaa. marka aniga hadda waxaan sameynaynaa continue ayaa leenahay. kadib wuxuu ku keenayaa marka halkaani wuxuu ku leeyahay sameyso password adag oo aadan hore u isticmaalin ama account kale aadan ku isticmaalin. marka hadda waxaan isku dayaynaa inaan password adagna sameysano. passwordka aad sameysatay ayaa labada boxba ku buuxinaysaa, kadib save password ayaa leedahay. mar kale ayuu wuxuu igu soo celiyay su'aashii hore oo kale. mar labaad ayaan waxaan gelinayaa password cusub kale, kadib waxaad taabanaysaa change password. sidaasi ayaad ku bedelatay marka passwordkaaga. hadda wuxuu ku leeyahay marka Google ku save gareyso, save dhe markaasi. sidaasi ayaad ku samaysatay marka password cusub. muuqaalkeena maanta intaas ayuu ku eg yahay. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.